Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkan ciyaaraha waxaynu soo qaadan doonaa fadeexada weyn ee maanta ka taagan Talyaaniga Andrea Pirlo oo ka cabanaya inuu cadaalad darro lagu sameeyay kadib markii lagu guuleystay xilka tababarnimo ee xulka Talyaaniga wiilkiisa oo wax badan ka hadlay erayo badan oo qalbiga bini'aadamka taabanaya ku hadlay ayaynu soo qaadan doonaa sidoo kale xiisaha Chelsea Henderson iyo sidoo kale Danny Welbeck ayaynu soo qaadan doonaa sidoo kale waxaynu soo qaadan doonaa John Stones oo heshiis afka la gaaray Inter Milan, Chelsea, Arsenal wuu ku booday iyo guud ahaan kubadda cagta. Haddii aad nagu cusub tahay kusoo biir, haddaad hore noola joogto like iyo share noo dheh waad mahadsan tahay. Aan ku bilaabnay Nicolo Pirlo oo ah wiilka halyeeyga kubadda cagta Talyaaniga Andrea Pirlo ayaa si xooggan u difaacay aabihii kadib murankii ka dhashay magacaabista tababaraha cusub ee xulka qaranka Talyaaniga. Andrea Pirlo ayaa ka mid ahaa magacyadii sida weyn loogu saadaalinayay inuu qabto xilka tababaraha xulka Talyaaniga. Si kastaba ha ahaatee, dood xooggan ayaa ka dhalatay arrin la xiriirta wiilkiisa Nicolo oo ka shaqaynayay hay'adda ciyaartoyda ee Grace Sports. Dad badan ayaa sheegay inay jiri karto iska hor imaad maadaama aabihii loo magacaabi lahaa tababaraha xulka qaranka halka wiilkiisu uu la shaqeeyo hay'adda matasha ciyaartoyda. Murankaas ayaa ugu dambeyn sababay in magaca Pirlo si weyn loo dhaliilo iyadoo arrintu noqotay mowduuca ugu weyn ee warbaahinta Talyaaniga. Qoraal uu ku daabacay baraha bulshada ayuu Nicolo Pirlo ku sheegay in niyad-jabka uu dareemayo uusan ka ahayn in aabihii waayay kursiga tababarnimo ee xulka qaranka Talyaaniga. Wuxuu yidhi waxaa jira waqtiyo niyad-jabku uu ka weyn yahay hal go'aan. Mararka qaar ma aha go'aanka laftigiisa balse waa sida dadka loo xukumo. Waxaan si fiican u ogahay inta aabihii uu jecel yahay shaqadan. Waan ogahay saacadaha badan ee wax uu ku bartay, dadaalka uu bixiyay iyo ixtiraamka uu muujiyay qof kasta oo la soo shaqeeyay. Nicolo wuxuu sheegay in dadka badankood aysan arkin dadaalka iyo qiyamka uu Andrea Pirlo leeyahay. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi qiyamka uu had iyo jeer ka hadlo ma aha erayo keliya, waa hab nololeed uu ku dhaqmay sanado badan wuxuuna mar walba ku guuleysan jiray shaqadiisa isagoo aan raadin waddooyin gaagaaban ama taageero been abuur ah. Wuxuu intaasi ku daray in Andrea Pirlo uu mar walba u oggolaaday shaqadiisa inay isaga ka hadasho halkii uu buuqa iyo olole u adeegsan lahaa sumcaddiisa. Nicolo wuxuu sheegay in waxa ugu daran aysan ahayn in aabihii uusan noqon waayay tababaraha Talyaaniga, balse ay tahay sida bulshada iyo warbaahinta u qiimeeyaan. Wuxuu yidhi waxaan dareemayaa murugo weyn ma aha kursiga tababarnimada, waayo kubadda cagta kursi waa la helaa waana la waayaa. Waxa i xanuujiyay waa jawiga laga sameeyay qof walba oo shaqadiisa ka hadli jiray, isagoo aan weligiis raadin waddooyin gaagaaban ama sumcad degdeg ah. Nicolo wuxuu sheegay in isaga oo ah wiil dhalinyaro ah oo mustaqbalka raadinaya kubadda cagta, ay dhacdooyinkan dhaawacayaan rajada dhalinyarada. Wuxuu yidhi waxa i xanuujinaysa in buuqa iyo hadallada badan ay mararka qaarkood ka muhiimsan yihiin aqoonta, kartida, ixtiraamka iyo qiyamka. Ugu dambeyn, wuxuu fariintiisa kusoo gabagabeeyay erayo taabanaya qalbiga aabihiis: wax kasta oo dhaca, hal shay weligiis isma beddeli doono. Aad ayaan kugu faanayaa, marka hore sida aad qof ahaan u tahay, ka hor inta aanan kugu faanin xirfadaha ay dunidu u taqaano. Qiyamka aad i bartay ayaa mar walba ka qiimo badan koob kasta, jawi kasta ama dhaleecayn kasta. Inkastoo Andrea Pirlo uusan si rasmi ah uga jawaabin murankan, hadalka wiilkiisa ayaa muujinaya sida qoyskiisa ay uga xumaadeen eedeymaha iyo doodaha hareerayay magaca halyeeyga reer Talyaani. Pirlo ayaa muddo dheer lagu xusuusan doonaa inuu ka mid yahay ciyaartoydii ugu fiicneyd ee taariikhda kubadda cagta, isagoo ku guuleystay koobab waaweyn kooxo ay ka mid yihiin AC Milan iyo Juventus, sidoo kalena xulka Talyaaniga kula guuleystay koobka adduunka 2006. Hadda, inkastoo uu waayay fursaddii uu ku noqon lahaa tababaraha cusub ee xulka qaranka Talyaaniga, wiilkiisa wuxuu caddeeyay in sharafta, qiyamka iyo sumcadda Andrea Pirlo aysan ku xirnayn hal xil ama hal go'aan oo maamulka kubadda cagta Talyaaniga ay qaateen. Sheekadan ayaa noqotay mid si weyn looga hadal hayo Talyaaniga iyadoo taageerayaal badan ay muujiyeen taageeradooda Andrea Pirlo, halka kuwa kalena ay ka aaminsan yihiin in hufnaanta iyo fogaanshaha iska hor imaadku ay danuhu ay muhiim u yihiin xilalka waaweyn ee qaranka. Dhanka kalena, daafaca xulka qaranka Talyaaniga ee John Stones ayaa af ahaan ku heshiiyay inuu si xor ah ugu biiro kooxda Inter Milan, sida ay sheegtay Sky Sports. Wakiilada Stones ayaa hadda dhamaystiraya faahfaahinta qandaraas 2 sano ah oo uu u saxiixi doono kooxda horyaalka Talyaaniga ka dhisan. Kooxda Juventus ayaa sidoo kale lala xiriiriyay xiriirada Stones dhammaadkii toddobaadkii, halka Arsenal iyo Chelsea ay muujiyeen xiisaha ay u qabaan saxiixiisa. Inter Milan ayaa ogeyd tartanka uga imaanaya kooxaha kale
waxay dadaal badan gelisay sidii ay heshiisku u soo afjari lahayd daafacaas laba-jirka ah. Dhanka kale, Inter waxay weli xiisaynaysaa kabtanka Tottenham ee Christian Romero, kaasoo uu tababare Christian Diouf u arko bartilmaameedka koowaad ee daafaca. Si kastaba ha ahaatee, qiimaha Romero ayaa la filayaa inuu aad u sarreeyo, waxaana suurtagal ah in Inter Milan ay wada saxiixato Romero iyo Stones haddii Benjamin Pavard uu ka tago kooxda. Balse waqtiga xaadirkan, mudnaanta Inter waxay siinaysaa John Stones. Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli jira walaac ku saabsan taariikhda dhaawacyada Stones. Intii lagu jiray xilli ciyaareedkii Premier League ee la soo dhaafay, wuxuu ciyaaray oo kaliya 439 daqiiqo kadib dhaawacyo soo noqnoqday boodada, kubka lugta iyo murqaha ah. Xilli ciyaareedkii ka horreeyayna wuxuu ciyaaray 547 daqiiqo oo kaliya. Sidoo kale, 10kii xilli ciyaareed ee uu joogay Manchester City, Stones kama uusan ciyaarin in ka badan 59 boqolkiiba daqiiqadaha Premier League, taasoo muujinaysa dhaawacyada si weyn u saameeyay xirfadiisa. Inkasta oo uu weli ka mid yahay daafacyada ugu tayada wanaagsan ee England. Dhanka kalena, Chelsea ayaa muujinaysa xiisaha ay u qabto khadka dhexe ee Brentford Jordan Henderson. Sida ay sheegtay Sky Sports, kooxda Blues ayaa ka mid ah dhowr kooxood oo waaweyn oo Premier League ka dhisan, kuwa oo doonaya inay helaan khibradda iyo hogaaminta ciyaaryahanka 36 jirka ah. Henderson ayaa weli kasoo kabanaya dhaawac gacanta ah oo ka gaaray koobkii adduunka 2026, tan iyo markii Ajax uu kasoo laabtay England sanadkii 2025 kuna biiray kooxda Brentford. Henderson wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan, isagoo sidoo kalena si fiican uga ciyaaray xulka England. Brentford ayaa Henderson u sheegtay markii ay la soo saxiixanaysay in uusan kooxda ku khasbanaan doonin haddii koox weyn ay dalab la timaado. Inkastoo uu hal sano ugu harsan yahay qandaraaskiisa, waxaa suurtagal ah in la oggolaado inuu ka baxo lacag la'aan, balse taasi weli lama xaqiijin, gaar ahaan haddii kooxo badan ay tartankan galaan. Chelsea waxay aaminsan tahay in Henderson uu kooxda ku soo kordhin karo hoggaan, khibrad iyo shaqsi adag. Horaantii xagaagan waxay sidoo kale isku dayeen inay la soo saxiixdaan Granit Xhaka, balse heshiiskaas ma uusan dhicin. Chelsea ayaa sidoo kale wada hadallo bilow ah oo wanaagsan la yeelatay Brighton si ay ula saxiixato weeraryahanka Danny Welbeck. Welbeck oo ah 35 jir, waxaana qandaraaskiisa uga harsan hal sano, waxaana Brighton diyaar u tahay inay fasaxdo haddii ay hesho qiimo ay ku qanacdo. Xilli ciyaareedkii 2025-26 ayuu dhaliyay 13 gool Premier League ah, halka xilli ciyaareedkii kasii horreeyay uu dhaliyay 10 gool, taasoo muujinaysa inuu weli yahay weeraryahan la isku halayn karo. Haddii Welbeck uu ku biiro Chelsea, waxay sii xoojin doontaa siyaasadda cusub ee kooxda ee ah inay keensato ciyaartoyda khibradda leh oo horey ugu soo ciyaaray Premier League. Chelsea waxay hore u saxiixatay Morgan Rogers oo Aston Villa ay kaga yimid 117 milyan, waxayna sidoo kale ku dhowdahay inay la wareegto daafaca Crystal Palace. Imaatinka Welbeck wuxuu shaki gelin karaa mustaqbalka weeraryahanka Nicolas Jackson, Lindelof iyo sidoo kale Marc Guéhi. Chelsea ayaa si cad u bedeshay istiraatiijiyadii ay ku dhisan jirtay kooxda. Muddooyinkii Chelsea waxay diiradda saari jirtay saxiixa ciyaartoyda da'yarta oo hibada u leh kubadda cagta. Imaanshaha tababare Xavi Alonso ayaa la rumeysan yahay inuu horseeday isbeddel cusub, iyadoo kooxda hadda ay raadinayso ciyaartoy khibrad leh isla markaana ay saameyn weyn ku sameyn karaan kooxda. Xiisaha Granit Xhaka, haddana Henderson iyo Welbeck ayaa muujinaya in Chelsea ay isku dayayso inay isku dheelitirto dhalinyarada iyo waayo-aragnimada.